iyadoo horaantii bishii Oktoobar ee sanadkan uu xisbiga himilo qaran u gudbiyay maxkamadda sare ee dalka dacwad ka dhan ah hay'adda duulimaadyada rayidka ee dalka ayaa maxkamadda sare ee dalka waxa ay maantay u fariisatay dhageysiga dacwadan ayaa la xiriirta go'aan ay hay'adda duulista ay ku joojisay duulimaadyada aadaya magaalada Kismaayo dabayaaqadii bishii September ee sanadkan go'aankaasi ayaa hor istaagay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed inuu u duulo magaalada Kismaayo si uu uga qayb galo xafladda caleemasaarka madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe garyaqaanka guud ee dawladda oo matalaya hay'adda duulista rayidka ayaa maxkamadda ka sheegay in dacwadan aysan ahayn mid maamul go'aanka hay'adda duulista oo quseyn madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed iyo dadka shacabka intaba waxa uu sidoo kale sheegay in abukaata Jimcaale uusan xaq u lahayn inuu u qarameeyo xisbiga himilo qaran maadaama uu yahay shaqaale dawladeed marka dacwadani waxay ahayd haddii ay dacwo jirto inay shirkadda iyo u dhaxayso hay'adda dadka private-ka ah dan aan toos ahayn ay ku leeyihiin mataqaanaa duulimaad waayo hay'addu lama macaamisho rakaabka waxay la macaamishaa shirkadaha marka waxaan codsanayaa go'aankan go'aan maamul maahan in mataqaanaa oo qaar ayadoo cadaaladda la eegayo sharciga maamulka dalka la eegayo maxkamaddu ayadaa nooga aqoon badan in go'aankan uu haba yaraatay buuxin shuruudihii go'aanka maamulka abukaata Jimcaale uu doodaya xisbiga himilo qaran ayaa dhinaciisa maxkamadda ka hor sheegay in dacwadan ay tahay mid maamul oo dhibaato kala duwan u geysatay muwaadiniin Soomaaliyeed haddii qaraarkan uusan ahayn qaraar laga dacwo karo qaraar maxkamadeed qaraar naqan ma jiro haddii qaraarka u quseeyo shirkadaha ma saameeyeen muwaadiniinteena ma saameeyeen shacbiga Soomaaliyeed oo laba maalmood u fadhiyay inay dawladda raacaan oo 22 goostay tigidhada 22 la xereeyay subaxnimada hore boodi baad goostay boorsooyinkooda la xereeyay u fadhiyay inay raacaan qaraar soo saar waan ugu fadhiyay garyaqaanada maxkamadda oo dhageysiga labada dhinac kadib dib isugu laabtay ayaa soo saartay go'aana in dacwadan ay tahay mid maamul maxkamaddana ay qaadi karto sidoo kale waxaa dacwadda laga reebay abukaata Jimcaale waa kan gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalka garyaqaan Baashi oo go'aanka ku dhawaaqay showrka kadib maxkamaddu waxa ay go'aansatay labada qodob ee hore dacwadan inay tahay dacwad maamul isla markaana uu jiro qaraar maamul oo laga dacwoon karo waxayna go'aamisay in loo gudbo dulucda dacwadda marka qaraarka hoosodaagaasi uu soo jeediyay garyaqaanka guud maxkamaddu waa diiday isortaaga labaad ee ah inuu yahay Jimcaale shaqaale dawladeed isaguna uu qiray inuu ka tirsan yahay shaqaalaha dawladda kuna jiro payrollka dawladda maxkamaddu waxay go'aamisay in Jimcaale laga joojiyo ka qaybgalka dacwaddan isla markaana dacwadayaasha ay difaacaan qareenada kale ee haysta wakaaladda gaarka ah ay ka haystaan dacwadayaasha marka waxaan u gudbaynaa dulucda dacwadda Jimcaalena dacwadan waa ka baxaya waa mahadsantahay ugu dambeyn markii dib la isugu soo laabtay ayaa qareemada u doodaya xisbiga himilo qaran waxa ay maxkamadda ka codsadeen in dib loogu dhigo dacwadan si ay u soo diyaar garoobaan maadaama xubin muhiima uu ka baxay garabkooda waxaana arrintaasi oggolaaday garyaqaanka guud taasi oo ugu dambeyn maxkamadda go'aamisay in muddo 5 cisho dib u dhigto dhageysiga dacwadan maxkamaddu iyadoo tixgelinaysa soo jeedinta qareenada dacwadaha ay ku codsanayaan in dacwadda muddo dib loogu dhigo si ay u soo kordhisaan qareenada u doodaya dacwadayaasha iyo aqbalka garyaqaanka guud inaanay waxba ka qabin haddii dacwadda dib loogu dhigo maxkamaddu waxay go'aamisay in dacwadda dib loogu dhigo in muddo si ay u soo gudbistaan qareenada ay u soo kordhisaan waxayna maxkamaddu siinaysaa muddo 5 maalmood ah inay ku soo dhamaystirtaan hawshiinaas maxkamadduna waa xirantahay Maxamed Cali Weheliye Universal TV magaalada Muqdisho